عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب شرفت لك سوداء مركلة عشر كيني تحنا ما أنت عشر كيني وحوك سابسين هاي قف سمي سنة شوبين قف سوق الصعود شوبين سوق سمي سنة أيوك سابسين هاي مركا ولي قيبه كونفرسيشن كان موجود جرنا عشر كيني وحوك سابسين هاي لا وقف يقول هاي أي بي وانسكو سوق هذا نحرفاس انسكو سوق الفابيت كان انسكو سوق هذا إيه qof bay u taagantahay magaciisa bina qof bay u taagantahay so labada qof ayuu u dhexeeya cashirkeen insha allah maxaa la dhihi jiray welina qeybay conversation ayaan ku jirnaa marka sidan ayuu u dhexeeyaa conversation waa kii qeybtii 6 waa conversation 6 wada hadalkii qeybtii 6 cashirka marka waa qof bay u taagantahay marka waxay dhahday what are you going to do today maxaa rabtaa inaad sameysid what are you going maxaa rabtaa to do today what are you going to do today maxaa rabtaa maanta inaad sameysid marka maanta maxaa qorshahaaga yahay oo sawir inaad sameysid aad rabtaa qof kale wuxuu ugu jawaabay I'm going shopping waxaan u socdaa inaan soo sameysto shopping inaan suuqa kasoo adeegto inaan soo adeegto ayaan u socdaa inaan adeeg aan sameysto ayaan u socdaa marka qof kale wuxuu yiri what time are you going to leave marka hore what time are you leaving waqtiga ayaa aadaysa waqti aad bixaysid oo adeega aadaysid goorma waay markii kale wuxuu jawaabay I am going to leave around 4 o'clock marka wuxuu dhahay I am going to leave around 4 o'clock waxaan rabaa afarta galabnimo inaan adeeg aado ayaan rabaa I am going waxaan jeclahay to leave inaan tago inaan aado around 4 o'clock afarta inaan aado ayaan rabaa adeeg marka qof kale hadlay wuxuu dhahay will you buy a ham sandwich for me at the store will you buy a ham marka hore will you buy a ham sandwich for me at the store okay aniga ma isoo iibinaysaa will you buy ma isoo iibinaysaa a ham sandwich waxaa la hilibkas oo minaha hilibka qeybaha hilibka waxaa la oo sida jiiraha camal jiirta neefka oo laga sameeyo sandwich laga sameeyo la marka ham for sandwich and for me ma isoo gadaysaa marka hilibkaas aniga ma isoo iibinaysaa at the store dukaanka ama meelaha lagu gado ma iga soo gadaysaa marka qof kale wuxuu ugu jawaabay okay markaan kusoo gaday camal laga wada okay waa la ogolaaday okay baa la dhahay marka do you have enough money weydi marka lacag kugu filan ma haystaa do you have enough money ma haystaa lacag kugu filan marka kii kale wuxuu dhahay I'm not sure ma hubi marka lacag kugu filan ma haystaa marka la marka wuxuu dhahay I'm not sure ma hubi how much money do you have with me how much imisa do you have haystaa how much do you have meeqaad haystaa how much do you have meeqa haystaa markii kale wuxuu jawaabay $25 waxaan haystaa $25 do you think that's enough ma malaynaysaa inay lacagtaas ugu filan tahay do you think ma malaynaysaa that's enough inay lacagtaas ugu filan tahay marka kii kale marka wuxuu dhahay that's not very much lacagtaas ma aha lacag badan that's not very much lacagtaas ma ahan lacag badan marka wuxuu dhahay I think kii kale wuxuu ku jawaabay marka I think waxaan u maleynayaa it's okay inay caadi tahay I think it's okay inay igu filan tahay ayaan u maleynayaa I also have 2 credit cards marka wuxuu dhahay I also have waxaan kaloo haystaa 2 credit cards kaararka oo wax lagu gato kaararka oo wax lagu soo gadan karo oo sida smart cardka oo bangiga iyo waxyaabaha cuntooyinka iyo lacagta ku jirto cuntooyinka lagu soo gadan karo
wadamada oo sida Mareykanka iyo wadamada horumaray dhan waa lagu isticmaalaa credit cardska oo wax kusoo gadan kartid, oo markaa supermarketka tagto aad wax kusoo gadan kartid adoo cash haynin ba kaarka wax kusoo gadanaysaa. Marka wuxuu leeyahay I have also have 2 credit cards, waxaan haystaa 2 kaar oo noocaas ayaan haystaa. Marka $25 ee labada kaar ayaan haystaa, marka inay ugu filan tahay ayaan qiyaasaya u dhahay. I think it's okay, I also have 2 credit cards, waxaan haystaa 2 kaar oo kaararka wax lagu gato ayaan haystaa, so inay ugu filan tahay ayaan u maleynayaa. Marka kii kale wuxuu dhahay let me give you another $10 aan kugu daro u dhahay, lacag $10 kale aan kugu daro, $25 haystay $10 kale aan kugu daro. Markii kale wuxuu dhahay thanks, waad mahadsantahay, see you later, marka aragtiin dambe xiise leh, bye. Kii kale wuxuu dhahay bye bye. Conversationka marka intaan ku egahay waan ku celinayaa mar labaad. saa ula socotiin cashirkan waa cashirkii qeybihii dadkii Englishka ku cusbaa. Waxaa la dhihi jiray conversationka ayaa ugu muhiimsan waxyaabaha maalin walba lagu hadlo. Qofka oo maxaa la dhihi jiray luqad kasta waxaa ugu muhiimsan qofka wuxuu isticmaali lahaa. Kow markaa ogaatid sheyga loo baahan yahay, sida loo dhaha intaan u socdaa, halkaas baan rabaa, waxaana cuni rabaa, kadib waxaad fahmi kartaa qaybta grammarka. Laakiin qofkan garanaynin wax fiican luqad ka garanayn, hadda grammar dhexda u gelisid waxaa la dhihi jiray confusion buu ka qaadayaa. Marka wuxuu arkaa things inay tahay wax very complicated ah. Marka waxaan rabnaa inaan marka hore ay la qabsatiin luqadda oo qeybaha conversationada iyo sida loo isticmaalo iyo sida hore u soo qaadanay qaabka cuntooyinka wax loo dalbado, sida la isku wareysto labada qof, waqtiga. Marka maanta waxaan ku jirnaa qeybtan conversationka ku saabsan qof soo sameysanayo adeeg suuq soo sameysanayo. Ma fahanti qof adeeg markuu sameysanayo eryaa ugu badan la isticmaala ayaan maanta cashirkeena ku saabsan yahay. Marka ka faa'iideysi wanaagsan insha Allah. Sidaan ayaan mar labaad ugu celinaa insha Allah. What are you going to do today? Maxaa maanta rabtaa inaad sameysid? What are you going to do today? Maxaa rabtaa inaad maanta sameysid? I'm going shopping today. Waxaan u socdaa inaan soo adeegto suuq, shopping ka soo sameysto, shopping ama adeeg aan soo sameysto ayaan rabaa. What time are you leaving? Waqtiga ayaad tegaysaa? I'm going to leave around 4 o'clock. Waxaan tagayaa 4 galabnimo ayaan baxayaa. I'm going to leave around 4 o'clock. 4 galabnimo ayaan tagayaa. Marka waa labada xaraf, labada qof uu dhahay A iyo B. Marka A ina markasta la muhiimaan waa iska fahmi kartaa, Cabdi aad gashi kartaa, Aasha aad gashi, John waxaad doontid baa iska gashan kartaa iyada meesha qoranta iyo B-da ama magacaada isku bedelan kartaa iyo qof kale saaxiibkaaga. Marka tanka markuu dhacay marka will you buy a ham sandwich for me at the store? Ma iga soo iibinaysaa hilibka lagu sameeyo sandwichka? Hilibka sandwichka lagu sameeyo ma iga soo iibinaysaa? Hilibka sandwichka lagu sameeyo ma iga soo iibinaysaa u dhahay dukaamada. Okay, waa diyaar u dhahay. Okay, waan kuu soo iibinayaa. Do you have money? Do you have enough money? Ma haystaa lacag ugu filan? I'm not sure u dhahay. Marka ma hubi inay ugu filan lacagta. How much do you have? Meeqaad haysataa? $25. Marka $25 ayaan haystaa. Do you think ma malaynaysaa that's enough inay tahay lacagta ay ugu filan tahay? Marka wuxuu dhahay that's not very much. Lacagtaas lacag badan maaha u dhahay. That's not very much. Lacagtaas lacag badan maaha. I think waxaan filayaa it's okay inay ugu filan tahay. I also have waxaan kaloon haystaa 2 credit cards. 2 credit cards waxaan haystaa kaararka wax lagu gato oo 2 xabo ayaan haystaa kale. So lacagtan hadda igu yaraad kaararkaas ayaan wax kusoo gadan karaa camal laga wadaa ninkan. Okay, let me give you another $10. Marka wuxuu dhahay saaxiib aan kugu dar let me give you aan ku siiyo another $10. $10 kale aan kugu daro. Markii kale wuxuu dhahay thanks, waa mahadsantahay, see you later, aragti dambe xiise leh, bye u dhahay garan. Markii u dambeeyay cashirka aan kormaraynaa conversation qaybtiisa 6 baan ku jirnaa maanta.
and what are you going to do? Maxay tahay maanta? What are you going to do? Maanta maxaad sameyn rabtaa? I'm going shopping. Waxaan u socdaa inaan soo shopping gareysto, aan soo adeegta u socdaa. I'm going shopping. Inaan soo shopping gareysto ayaan u socdaa. What time are you leaving? Goormaad tegaysaa? Goormaad shopping aadaysaa? I'm going to leave around 4 o'clock. Waxaan tegayaa 4 baan tegayaa, 4 galabnimo ayaan tegayaa. Will you buy a ham sandwich for me at the store? Ma iga soo gadaysaa hilibka sandwich lagu samaysto? Hilibka sandwich lagu samaysto dukaamada meesha ah, ma iga soo gadaysaa? Okay, wuu dhahay markaan kaga soo gadayaa. Do you have enough money? Lacag kugu filan ma haystaa? Markuu dhahay I'm not sure, ma hubi. Marka wuxuu dhahay aniga ma hubi inay lacagta ay ugu filan tahay. How much do you have? Markuu dhahay meeqa lacag oo haystaa? How much do you have? Marka meeqa haystaa? $25. Waxaan haystaa $25. Do you think that's enough? Ma u malaynaysaa inay lacagta ay ugu filan tahay? Do you think that's enough? Lacagta lacag nagu filanay tahay ma u malaysaa? That's not very much. Lacagtaas ma ahan lacag badan uu dhahay. That's not very much. Lacagtaas ma ahan lacag badan kuley. Marka lacag yar way camal ayaa laga wadaa. Markii kale wuxuu dhahay I think it's okay. Inay ugu filan tahay ayaan u malaynayaa. I also have 2 credit cards. Waxaan haystaa 2 kaar oo wax lagu soo gato. Kaarkan credit kaarka la supermarket meel kasta wax looga gadan kara ayaan haystaa u dhahay. Marka kii kale marka wuxuu dhahay let me give you another $10. Marka aan ku sii u dhahay $10 kale. Let me give you another $10. aan ku sii $10 kale. Thanks u dhahay marka waa mahadsantahay. See you later. Aragtidan bixisa leh. Bye. iyo nabadgelyo. Waxaan filayaa ardayda casharada aad si fiican mina ugu bogateen. Insha Allah casharkeeni maanta halkaas ayuu noo joogaa ilaa iyo casharkeena kale. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.